أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء كحجانك حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية وزير أوقافة يارما دينتا قدومية قبل كبنادر أهنا دوغا مقالة مقدشو حلبانada gudoomiye ku-xigeenka koobaad ahna kusimaha xiriirka kubadda cagta iyo ku-xigeenka labaad gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo kan maamulka muqdisho iyo kan 17 degmo waxaan leeyahay dhammaan bahweynta isboortiga iyo degmooyinka gobolka banaadir dhammaantiin saxaafadda assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii maanta waxaan u joognaa tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir sanadkan 2019 dawladda ra'iis maanta furitaankan waa hordhicii iyo isfeelmeentadii la maraayay sida jadwalka ku cad haddii Allah awoodda la ogolaado xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo xiriirka gudoomiyaha isboortiga gobolka ayaa isla sii daadihin doona iyadoo ay la kaashanayaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo gobolka mudana gudoomiye ugu horeyn ra'iisul wasaaraha hortiisa waxaan kugu hambalyaynayaa magacaabistaada xilka gobolka banaadir iyo kan magaalada muqdisho annaga ka wasaaradda dhalinyarada iyo isboorti ahaana maamulka gobolka banaadir ee aad mas'uuliyadeeda qaaday ra'iisul wasaaruhu waa og yahay waxaa naga dhaxeeya wada shaqayn aad u ballaaran haddii Allah awoodda la ogolaado waxaan ku faraxsanahay isboortiga Soomaaliyeed horumarka uu sameeyay 2 sano ee ay jirtay dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda dawladda uu hormuud ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre barnaamijka dawladda ra'iis annaga ku shaqeyno kaasaan la wadaagnaa gobolka banaadir iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira dhinaca horumarka isboortiga waxaan rabaa si gaar ah hortaada inaan uga mahad celiyo dawladda ra'iis saxaafadda oo qayb weyn ka qaadatay baahinta tartamada caalamiga ah ee xiriirada kala duwan ee ka sameeyaan daafaha dunida gaar ahaan kii hadda ugu dambeeyay ee kubadda cagta oo ay Soomaaliya gaartay in ay ka soo muuqato tartanka ciyaaraha adduunka laakiin waxa jira warbaahimo xun iyo shakhsiyaad xun oo Soomaali ah oo aan horumarkaas u muuqan kuwaasi waxaan iskaga reebnay laad iyo xusul nagama mid aha inta samaha jecel horumarka jecel ayaan isku jaalnahay ayaga ka soo tabiya daalafaha caalamka iyo Soomaaliya gudaheeda waxaan leenahay saxaafadaas way soo tahay waa ka joojinay garoomada isboortiga mana ka yeelayno ilaa ay bixiyaan apologize ama raaligelin dhab ah sidii ay baraa wax ugu qoreen ha isu soo shaaciyaan haddii kale waa ka soo ma yihiin si official aan u sheegnay haddii Allah awood la ogolaado idinka waxaan idinkaga mahad celinayaa intii aanan hawshaas dheerna la soo martay waa mahadsantihiin inaan idinku dhaho ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha wada shaqaynteennana halkaas iyo ka sii fiican ayay ka sii socon doontaa kuwa bukaa jira ma aha arxan laawayaasha shabaab shakhsiyaad nagu dhex jira nabad iyo nololna dhinac ka ah nabarna caloosha ku qabaa jira ayaguna naga mid maaha kuwa nabarada qabana